ujeedada shirweyne waxaa weeye shirweyne aan caadi ahayn laakiin la isugu diyaarinayo marxalad cusub baan galnay, heshiis baan galnay, shirweyne kaa la isugu diyaarinayo oo ururka hawlihiisa lagu baarinayo dhammaan deegaanada, oo halgan siyaasi ah la isugu diyaarinayo, oo halgan si nabada loo halgamayo la isugu diyaarinayo. shirweynaha ujeedadiisuna saa wey. doorasho ma dhacaysa ururka doorasho mar hore ugu dambeysay gaar ahaan madaxda ugu sarreysa dhowr iyo 10 sano xilka hayaan. waxaa shirweynihii hore waa la soo doortay hogaaminta golaha dhexe, guddiga fulinta, guddoomiyaha dib baa loo doortay, structure waxbaa laga bedelay oo guddoomiye ku-xigeenkii waa la baabiyey, xogeeye guud baa la doortay, mas-uul cusub baa noqday, xubno cusub baa golaha dhexe soo galay, xubno cusub baa guddiga fulinta soo galay. hogaaminta guddoonka oo adigana aad ka mid tahay inaad ku raagteen xilka soo ma moodid dhowr iyo 10 sano idinku baa soo noqnoqonayay, odayaalna waa tihiin, etoobiyana dhiig cusub iyo marxalad cusub ay gashay. marka gaar ahaan afartiina oday ee ururka ugu sarreysa adiga iyo jananka iyo maxamed ismaaciil iyo maadey soo kuma aadan raagin kuraasta? waan ku raagnay, laakiin annagu tawrad baan nahay, tawrad gobonnimo doonaan nahay, xisbi siyaasi oo dal nabada ka halgama ma ahayn, xisbi magac iyo manfac lagu helo ma ahayn. marka dad naftood hurayaal lagu yeedho, halgamayaal loogu yeedho oo iyagu dhaqaalahooda iyo dhiigooda iyo waktigooda huray ahaayeen, ma ahayn xisbi siyaasi oo hoggaankiisu nin lagu maamuuso haya ma ahayn. cabdiqaadir hirmooge, isbeddel baa aad loo hadal hayaa ururka. dhowr jeer aad shirtaan, wax muuqdana ma beddeshaan. raggii hore unbaa soo noqda, mabaadi'dii waxba kama beddeshaan. shirkan goday aad hadda u fadhidaanna aad baa farta loogu fiiqayaa, iyadoo weliba xilli isbeddel uu etoobiya ka jiro uu shirkan ku soo beegmay. mabaadi'da wax ma ka beddelaysaan oo magaca uu ugu horreeyo magacan Ogaden National Liberation Front? istiraatiijiyad cusub waan qaadanaa, mabaadi'danada ku dhisan inaan dad Soomaali aan nahay, dad dulman nahay, ay ka talin doonayno, ismaamul doonayno, xorriyad doonayno, nolol doonayno, jiritaan iyo identity iyo muuqasho ummadeed aanu doonayno, kama tanaasulayno. magaca ma ka tanaasulaysaan caddaani? magacan Ogaden ma ka tanaasulaysaan? istiraatiijiyada iyo magacaba waxay u yaalaan shirweynaha awood u leh sidiisaba, golaha dhexe kama bedeli karo. shirweynaha yaa lasoo hordhigi, qodob kastana waa lasoo jeedin karaa, doorashadana way dhacaysaa oo shirweynaha samaynaya, nin walba wuu isarrixi karaa. guddoomiyaha iyo hoggaanka in la bedelo ama la doorto qayb buu ka yahay shirkan hadda u fadhidaan goday? wuu ka mid yahay. waa gartay. waxyaabaha kale lidinku eedeeya waxaa ka mid ah inaad xisbigii ku dhex milanteen, xisbigii dimuqraadiga soomaalida etoobiya, Somali Democratic Party, oo baawurtiisii aad isticmaalaysaan oo guryihiisii aad degan tihiin. marka taa maxaad uga jawaabaysaa? waxaan uga jawaabay taas annaga dawlad gobonnimo doonaan ahayn oo dadka Soomaaliyeed wakiilka, dawladda Etoobiyaan la diraynay, heshiis baan la galnay, xafiisyaan ku leenahay, gaadiid baan ku leenahay, waxaan leenahay peace building process. marka xisbi Addis Ababa iyo Jigjiga iska abaabulay oo boorar la soo xaadiray ma nihin. marka xal siyaasi iyo dhaqaalo badan iyo gaadiid iyo dibadejin iyo power sharing bay xaq u leeyihiin. xisbigaana kumaanaan milanin. halaakiin soo idinka isticmaalaya jigjiga waxaad degan tihiin guryihii dawladdana dee xisbiga madax u ah xisbiga dimuqraadiga soomaalida oo ah Somali Democratic Party, baabuurtiisii aad isticmaalaysiin, hoolalkii shirarka yaad shirarkii ku qabsan haysaan. marka xisbi idin quudiya oo aad hadda noloshiinniiba gacanta ku haya sayd biri ula tartamaysaa? wax suminuu xisbi leeyahay maanaan isticmaalin. hantidan shacabka Soomaaliyeed baa iskale, Somali State baa iskale, shacbiga Soomaalida Ogaadenya iskale, waa hantidayadii oo qaarkeed inteedii badneed naga maqan tahay. xaq 100 jibaaran baan ku leenahay. xisbigan caydhaa annagu 1 shilin oo kiisa maan muxuu ahay ma weydiisanayno, mana u laha. gaadiidka, guryaha, muxuu ahay dhaqaalaha iyo facilitieska ummadda Soomaaliyeed baa iska leh. xisbigan muxuu ahaayey aad hadda carabaabayso iskama laha, martina uma nihin inuuna martiyo mooyaane. aan u gudbo su'aal kale cabdiqaadir hirmooge, doorashada ma sidanaad ku gelaysaan bisha May sanadka soo socota sida la qorshaynayo? doorashaa dalka ka dhacaysa, ma wejiyadan intaasoo sano jabhadda madaxda u ahaa baad ku gelaysaan mise rag cusub iyo dhiig cusub aad soo wadaan? rag cusub waan soo wadnaa, dhiig cusub waan soo wadnaa. halgamayaashii qaaliga ahaa ee shacabkan usoo halgamay, ee usoo dagaalamay, ee xuquuqdooda
dhiig cusub iyo aqoon cusub iyo dhalinyaro iyo xoog cusubna waa imanayaan tawxiya shacabkeeda oo wada socdo oo 15 milyan baa doorashada geli oo qalbiga iyo maskaxdaba ka wada socda guushana waanu ku dhufanaynaa 7 iyo ebel waa gartay shacabka maxaad u taqaanaan kuwa goday iyo qabri daahri iyo dhagax buur degan shacabka Soomaalida inta uu ka balaaran yahay way rafaadsan yihiin dhib baa hadda ku socda gobolka City canfar baa dadkii laynaysa sida la sheegayo dagaala ka socda degmooyin baa la qaatay ma tagtaan oo shacabka haduu idin siman yahay ma City iyo diri dhabiyo dhulka inta tagtaan oo shacabka mid idin noqdo waanu ka hadalnaa waan joognaa City xubno oo la faajooga kaadir oo la faajooga halgamayaal baa jooga aniga jooga ka howlgalayay qaar baa hadda ka soo ambaxayo shir ka soo qaybgalaya qaar baa arrimaha u jooga xalay baan riboodka qaadanayna xadeyti iyo dhibaatooyin ka dhacay hawlo dawladda ismaamulka iskale deegaanka dhulka Soomaalida ee dalyo kale hadiyada loo siiyay inay soo ceshadaan baan ugu baaqnay way soo ceshadeen